بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. halkan waa inaan kula wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan danayaasha arrimaha Soomaaliyaba shirkii sanadkii Soomaaliyeed oo lagu ballamay Soomaaliyeed iyo xaaladiisa si aad la socotaan Soomaaliyeed waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15-keeda la isugu yimaado magaalada Soomaaliyeed kaliya si looga heshiiyo hannaan doorasho oo dalku galo. madaxdii Soomaaliyeed ka soo qayb gashay Soomaaliyeed ballantu waxay ahayd 15 bisha August in la isugu yimaado magaalada Soomaaliyeed. waxaa ka soo qayb galay 15 bisha August oo ballankii ilaa hadda la soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish, waxaan weli la soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo runtii aan cudurdaar u samaynayno ama cudurdaar leh oo xanuunsan intaan ognahay la caafiyaan leenahay. dhammaan madaxda u mahadcelinaynaa, madaxda soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah u mahadcelinaynaa. zoni waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sida ay ahayd. waa mahadcelinaynaa. waxaan rabnaa inaan ka caddayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay. ballantu ay ahayd ayagu ay dhinacooda ballanta ka qabteen. waan leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogashii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaan oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay. sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina maaha. waxaan is leenahay xilli fariimaha hawada la isu mariyo ma joogto. waa la kala duwanaan karaa, waa jiri karaan waxyaabo aan ugu wada qanacsanayn, balse goobteedii iyo gubasheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo loo heshiiyo. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gubasha. waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto, xaaladda dalka ku jiro, hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay, rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo looga hadlo. uma baahnaan si leeyahay inaan ka didacno iyo waqtiga ku dhuman wax aan ku aadanayn maslaxada. sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gubashii iyo ballankuba ahaa. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed
qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin amaan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn madaxa Soomaaliyeed waa ka fahmeen waa iska fahmeen Soomaaliyeed wan iyo Soomaaliyeed tuwa waa lagu soo heshiiyey tiriina waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanada soo aabada Soomaaliyeed waxaana ku kalsoonahay ka soo baxa Soomaaliyeed tiri inay furayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaan karaan talooyinka iyo go'aamada ka soo baxa waxaan leenahay sidaas walaalahay intaas aan rabaa uga baxo intii waxaan rabaa inaan caddeeyo inaan wada xiriirno rajo fiican aan ka qabno inaan isugu nimaadno sidii taladuba ay ahayd maantay waxaa noo furmay shirkii wejigiisii koowaad maanta la gudagalnay waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hannaan doorasho la kala doorto ama lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddiguna waa ku jiraan hawshoodii mise maantay intaasay nala wadaageen caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wadahadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ay nala wadaageen intii guddiga uga mahad celinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urusheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawa ah si guud mabdiyan waa isku afgarannay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahay nagu soo biiraan ay nabadda soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inaynu soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaa yidhaahdo ugu dambayn waxaan waa halkaan nabad diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guulaysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaana leenahay walaalayaal shirkan insha Allah guul ku dhamaanaya dalkuna hannaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha Allah tacaala taasna kalsooni aan ku qabnaa waana ku kalsoonahay in saas u dhacayaan sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saaxiibadeena beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay Soomaali u garab taagan yihiin oo dowladda sida Soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halka uga mahad celiyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaar ah doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayo talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul uga gaaro noo siinayo waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaana wax haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ah ee Soomaali laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa waxaan rabnaa inaan meeshaan ka sii wadno guulna u rajaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan insha Allah waxaan leeyahay kale gobasha waxaa dhigay reer Galmudug walaal kasta oo qabi kara gobasha reer Galmudug ku tixgeliya qadariyo annagoo ku qanacsan meeshii deeri ku jiro inaan ka bari karno ka qanci karno walaalkii qaba ama mas'uulkii qaba sidaa darteed gobasha hal qadariyo hal yimaado aad iyo aad u mahadsantihiin maas xaafadda oo mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh